waa dad kaba jecelba dulmiga qaarkood. waxyaabaha aan anigu soomaalida kala yaabay ayay ka mid tahay bal daawo muuqaalkan. عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مركز مغلق عصب مقعي وعبد الساق حاشي halka dagala socotana waa hee cabdirasaaq channel piu piu sii laagare sii sheelgare sii comment gare ra'yigaagu waa muhiim. maanta dabka waxaa noo saaran hodan cabdiraxmaan iyo iyo qalanjadii hore ee mataqaan ninka odaga ahaa mursal oo ka tegay ee furay yaa boqorada maxaa kale magaceedan ku sheegaa saliima. bal ila daawo muuqaalkan. والله Soomaalida horta waxa way war way been way sheegtaa laakiin been kuma mahdo. waxaan dareemayaa gabadhan maantay sidii u eg tahay u qurux badan tahay maasha Allah qadar silmo waa taageersanahay boqolkiiba boqol aniga taageeraheeda koowaad ahay. laakiin waxaa la iska rabaa Soomaalida sidii ma baxshootaba gabadhan wiil bay guursatay waxay ku ahayd agtiisa way ku qanacsaneed naag buu la guursaday way kala tageen wayna kala baxeen wayna kala dhamaadeen. qatro way isbedeshay way qurux badnaatay maasha Allah bukaanadii ka reysatay bukaanadii niyo heesta in ayada loo qaada umaleynaa wax xaqiiqo waa taas. marka gabadhan Soomaaliyeed ninkan way kala tageen wayna kala dhamaadeen way hodan haddii la soo heysto qatra silmo maxaa dhib ku jira. waxa arkay komadi tiyo badan oo lagu aflagaadinayo damiir malahan naag xun waaye naagti nin ka dhacda waaye war ninkaan nasaa baxay ninkaan markuu baxay gabadhan ma ka reesatay mise khotor way ka darsatay su'aal rabaabe yes ani waxaan qabaa boqolkiiba boqol inay ka reesatay. waxaan ogahay shalay sidii ahayd ee maanta sii tahay farqi u dhaxeeyo. shalay waxay hooyo marna uur leh mar dhaleysa mar umul ah daruufti ku qaabishay daruuf yar iskala nool mataqaanaa ku faraxsan yacni la dhafarta asaga caawisa garab istaagta intii wuu fahmi waayo maanta shalay qurux badan tahay dadka wax ma fahmayaan saymaata waa ka yaabanahay qatro maanta shalay maantay ayay qurux badan tahay oo farqi weyn nololeed u dhaxeeya. qatro shalay iyo maantay laba qof ay kala tahay. hodan ayadaa maanta ka maseereeda waa huwa boqolkiiba boqol. hodan iyo qatro dagaal kama dhexeeyo xumaana kama dhexeeyo. hodan iyo qatro dagaal kama dhexeeyo xumaan kama dhexeeyo nin kama dhexeeyo. qatro ninka waa lagu qabsaday waana uga tagtay det basti way dhamaatay taas. marba haddii ninkii ka dhaqaajisay ay tirniyahow kuu daayey adiga hayso ha ku anfaco adiga waxa ku taro dee way ka saxan tahay. waayo shalay ayaduu baabi'iyey lafaheedii cunay dhulka dhigay ka soo kabatay bukaanadii ka reesatay ka qurux badnaatay. yaa qurux badan qatrada shalay marse la joogto ma qurux badan mise qatrada maantay isku tashatay oo go'aankeeda qaadatay oo nolosheeda dheysatay ee ku faraxsan ee u shidan tahay ee shilinkeeda ayaa jeebkeeda galo kareenkeeda ayaa jeebkeeda gidato quruxdeeda labiskeeda ayada ka shaqeyso daryeelka ubadkeeda ayada ka shaqeyso ayadaa qurux badan.
shalay haddii ay soo gasho $200, haddii soo gasho $500, haddii caawa aroos ka soo hiisto, haddii xaflad soo qabato, dhaqaalaha dhan mursal gacanta u galay. isagaa qurux badnaay, isagaa labisnaay, isagaa wax walba hay, isagaa maantay mataqaanaa qadro kadaba ordahay. Just waxaan ogahay haddii la dhihi lahay maantay qadraha laguu soo celiyo faa'iido badan uu ku qabi lahay. waayo gabadha kale Hodan Cabdiraxmaan waa qof American citizen ah oo isku tashtay oona yaqaana inaan la sugin nin jeebkiisa. nay waxay ku tashataa jeebkeeda, waxay ku tashataa shaqadeeda, waxay ku tashataa hantideeda. asaga ayay wax siisaa, asaga ayay beeshaa, asaga ayay wax u qabataa. That's all. waa taas muhiimadeeda. uma baahna labadooda maanta gabadhan haddii gabadhan kale u maadana ceeb kuma jiro, laakiin wax qatra loo caayo loo dhiig ma lahanay. bal ila daawo muuqaaladan xiriirka ah ee qatra lagu aflagaadeynayo. daawo bal ra'yiga asxaab tiktok ila daawo. anu maseerkayga cirkaasuu marayaa. naag ninkayga ila guursato wallaahi haddaa awood ku helay nafta inaan dhaafiyaan jeclaa. kow ka siiya kow. haddaan kala tagnana warkeedaba daa maba garab istaageenba. haddaan kala tagna xataa single uu yahay inuu naag kala guursado. يا الخضراء iyo Hodan Cabdiraxmaan baa makarafoonka naagtu qabanaysa. naagta ninka ka qaad waji buug anaga ku caynayno dheeranayaa ninka u soo celi qumaye aka naag ninkaaga kaa qaadataa makrofanka u qabani naagtan dhiig ma laha qofka celiyaa la waaye. alla foolxumo badnida Qadra Silmaan. ana hadda ahaana laba cad baan kala dhigi lahaa naagtaas. Qadra Silmaan maseer ma taqaana faa'iidana ma tii waxa la yaabto Soomaa. qadro waa qof karti leh oo wanaag badan oo wax qabsatay, isku tashatay, ka tashatay, jeebkeedana ku tashatay, kartideedana ku tashatay, aqoonteedana ku tashatay. mursalna waa nin danaystay oo baasaboor guursaday, oo baasaboor raadiyey, oo mataqaanaa adduunyiisa galay. dee asaga taala danihiisa. laakiin inaa qadro iyo Hodan aa isku caydo tirahdo makarafankay u qabatay, naag dhiig lamahan, naag sana maahan. ayada laftigeeda digdheeradahay gabadhii shal ninka ka dhacday maxay usu doontay. that's all. su-aasha taas waa inaad weydiidaan laftikiina. waayo waxaa la ogaaday inay qatra tashatay, inay ka maarantay. qofka markuu tashadana cirkuu talaa. daa tashato cirkan waa tagi kartaa taaka labadeed. marka muuqaalkan iyo muuqaalka xigaa noo barana insha allah. salaamullaahi calaykum.